بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسنا قيارتنا لا سقطة وافري tobanka maarso sanadka 2026 dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe waxa uu yeeshay waji kale waxaana iminka muuqanaya loolana kala duwan oo soo baxaya madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu goor dhaweey diiday dalab ka yimid madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ku saabsan in dagaalka la soo gabagabeeyo si xiisadan taagan xal loogu helase dhowr shardi oo ay dawladda Moscow keentay Trump waxay u muuqdeen in uu halkaasi kala hoyanayo guul darro haddaba muxuu yahay dalabka madaxweynaha Ruushka uu soo bandhigay barnaamijka ayaan kuugu sheegi doonaa dhinaca kale Moscow waxay sidoo kale ku dhawaaqday in xarunta dhismaha nuclear-ka ay gacanta ku hayso ee dalka Iran hawsheedu ay si habsami leh u socoto isla markaana aysan jirin wax duqeymo oo ay la kulmeen Ruushka iyadoo dagaaladan ay ka soconayaan dalka Iran waxa uu sidoo kale wadaa mashruuc dhismo nuclear ah balse waxa uu ku tilmaamay sida Mareykanku ay u fakarayaan iyo Israel si aan ahayn inay wax u jiraan haddaba maxay tahay sidee wax u jiraan waan ku sheegi doonaa dalka Iraq ku dhawaad 30 qof ayaa lagu dilay kontomeeyo kalena waa lagu dhaawacay kadib markii ciidamada Mareykanku ay duqeymo ku sameeyeen fadhiyada military oo ay leeyihiin kooxda lagu magacaabo al-Hashd shacbi oo wadanka Iraq ka tirsan kooxdu war ayay soo saareen dhawaan ma waxay ku tilmaameen dagaalku inay gali doonaan maxay tahay fariinta adag ee loo diray dawladda Iraq warban ka siin doona arrintaasina aqalka cad ee Mareykanka waxa laga soo sheegayaa la taliyaashii Trump inay gorodda iskula jiraan loolan adag ayaa bilowday waxana arrintaasi ka jawaabay afayeenka aqalka cad Colonel Levitt oo tilmaamaysa xiisadda hadda halka ay marayso dawladda Sacuudi Carabiya Israel iyo waliba kuwa kale oo carbeed ayaa caawa la duqeeyay xiisaduna waxay u muuqataa in ay sii kordhayso soo dhawaada khiyaarta cusub wararka khiyaarta inala socota qodobadaasi iyo wararka kale ee cusub ayaan idin kula wadaagayaa barnaamijka Cabdicasiis Barre wayaanahay idilkiinba meel kasta oo dunida ka joogtaan soo dhawaada dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu goor dhaweey diiday dalab ka yimid madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin sida ay qoraysa majalada Axios madaxweyne Putin ayaa soo jeediyay si dagaalka loo joojiyo dawladda Mareykanku waa inay aqbashaa macdanta ama uraniumta la hodmiyay ee dalka Iran Mareykanka iyo reer galbeedku ay ka walaacayaan in loo duuliyo wadankaasi Ruushka laakiin Trump ayaa arrintaasi u arkay mid uusan ku qanci karayn hasaate ay doonayaan in ay burburiyaan ama in uraniumtaasi ay gacanta ku dhigaan ciidamada wadanka Mareykanka ama in dawladda Iran ay aqbasho inay si rasmi ah u soo wareejiso arrintaasi kadibna la gali karo wada xaajood nabadeed oo dagaalka laga gaarayo arrintan Moscow waxay u aragtay in ay tahay mid xalka lagu kaali karayo sida majaladu ay qorayso warbaahinta Axios ayaa soo xigatay ila xog ogaal ah oo ah in madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu diiday soo jeedin uu sameeyay madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin taas oo la xiriirtay in uraniumka la hodmiyay ee Iran loo wareejiyo dalka Ruushka soo jeedintaasi ayaa la sheegay inay qayb ka tahay qorshe ama heshiis lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka isbuucii saddexaad soconaya gaar ahaan colaadan u dhaxaysa Israel iyo Mareykanka oo xulufo ah iyo Iran oo ka soo horjeeda sida ay wareedyadu ay sheegayaan qorshahu waxa uu ahaa in uraniumka la hodmiyay ee Iran loo qaado dalka Ruushka halkaasi oo lagu hayo si loo yareeyo walaaca caalamiga ah ee ku saabsan barnaamijka nuclear-ka ee Tehran taas oo qayb ka noqon lahayd heshiiska ballaaran ee laga doonayo in dagaalkan soconaya lagu soo gabagabeeyo si kastaba ahaatee Trump ayaa la sheegay in uu diiday qorshahaasi isagoo Putin kula taliyay in tallaabadaasi ay fududeyn karto wada hadal lagu joojinayo dagaalka iyo xiisadan sii xumaanaysa ee gobolka bariga dhexe ka aloosan sida khubarada la hadlay majalada Axios caawa ay ku warameen dhinaca kale dawladda Ruushka ayaa ku warantay in ay ka shaqaynayso arrimihii nuclear-ka ee wadanka Iran taas oo ay dawladdu tilmaantay in warshada ay gacanta ku hayaan ee gobolka Bishaahir ku taala ay iminka sideedii u shaqaynayso dawladdani waxay sheegtay in barnaamijka nuclear-ka ee Moscow gacanta ku hayso aanu la xiriirin
in loo isticmaalo qaabab military hase haatee arrintan ay tahay mid rayada. dowladda ruushka ayaa xaqiijisay inay si caadi ah u socdaan shaqooyinka dhismaha iyo horumarinta xarunta tamarta nuclearka ee Bushehr ee ku taala dalka Iran. mas-uuliyiinta ruushka ayaa sheegay in howlaha farsamo iyo dhismaha mashruucu uusan istaagin inkastoo ay jirto xiisad military oo ka taagan gobolka. warbixintu waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay sii xoogeysanayo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran oo Israel ay ku lamaan tahay dhinaca Mareykanka kaasi oo sababay warar isdaba jooga oo xoogeysanaya daqiiqada ka dambaysa sida ay ku waramayaan khubaro kala duwan. khilaaf xoogan ayaa laga soo warinayaa aqalka cad inuu ka taagan yahay kaasi oo la xiriira sii socoshada dagaalka in qaar ka mid ah la taliyayaasha sare ee madaxweyne Trump inay u arkaan burbur dhaqaale iyo in Mareykanku uusan wax guul ah ka keeni doonin. hase haatee qaybo ka mid ah dhinacyada jamhuuriga ee madaxweynaha la safan ayaa u arka Trump inuu hayo dhaba muhiim u ah guud ahaanba shacabka Mareykanka isla markaana hanaanka military ee lagu soo gabagabeynayo dagaalka Iran uu u baahan yahay inuu qaato waqti si qatarta nuclearka ee ka imaanaysa dowladda Iran loo soo gabagabeeyo. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa shaaca ka qaaday inuu jiro khilaaf gudaha ah oo ka dhex taagan aqalka cad ee Mareykanka kaas oo saameyn ku yeelanaya fariimaha uu sida cad u diraya madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan jihada dagaalka Iran uu aadi karayo. warbixinta ayaa sheegaysa in dood adag oo ka dhex socota kaaliyaasha Trump kaas oo ku kala aragti duwan baa layiri goorta iyo sida loo shaacin karayo guulaha military xilli dagaalka ka soconaya gobolka bariga dhexe uu sii ballaaranayo. ilo ku dhow aqalka cad ayaa sheegay in qaar ka mid ah mas-uuliyiintu ay ka digayaan saameynta dhaqaale ee ka dhalanaysa dagaalkan gaar ahaan kororka qiimaha shidaalka. dhinaca kale garab adag oo ka tirsan maamulka Trump ayaa wada howlo adag oo looga soo horjeedo arrintan. ilo xog ogaal ayaa sidoo kale sheegay in Trump uu shirar gaar ah uu la yeeshay qaar ka mid ah la taliyaashiisa uu ku cadeeyay in uusan rabin in dagaalka uu si degdeg ah u joojiyo isla markaana xiisada gobolka bariga dhexe ay sii xoogeysan karayso. warbixintu waxay intaasi ku dartay in qaar ka mid ah la taliyaashu ay soo jeediyeen in dagaalka la soo afjaro si loo muujiyo guul xitaa inta badan hogaamiyaasha Iran haddii ay ka badbaadeen dagaalka. Trump ayaa howlgalka military bilaabay 28 bishii aynu ka soo gudubnay isagoo ballan qaaday in uu gaarayo ujeedooyin ballaaran. si kastaba ha ahaatee maalmihii dambe waxa uu hoos u dhigay himilooyinkii dagaalka isagoo tilmaamay in dagaalka militariga uu yahay mid xadidan oo gaaraya bartilmaameedyo iyo ujeedooyin gaara. walaaca dhaqaale ee sii kordhaya ayaa tilmaamaya in dhinacyada Trump kala shaqeeya arrimaha dhaqaalaha ay soo jeedinayaan in tani ay keeni karayso dhaqaale caajis ku dhaca waddanka Mareykanka iyo xulufadiisa oo burbur weyn soo gaari karayo. ilo xog ogaal ayaa sheegay in la taliyaasha dhaqaalaha ee maamulka Trump ay ku jiraan saraakiil sare oo ka tirsan waaxda maaliyadda iyo kobcinta dhaqaalaha waddankaasi ay ka digeen kororka qiimaha shidaalka iyo saliidda ay hoos u dhigi karayso taageerada shacabka ee gudaha dagaalka Mareykanka uu haatan ku jiro. la taliyaasha siyaasadda aqalka cad oo ay ku jiraan qaybaha dhaqaalaha u sareeya ee Wales iyo ku-xigeenkeeda James Blair ayaa sidoo kale muujiyay walaaca la xiriira saameynta siyaasadeed ee kororka qiimaha shidaalku inay aad u adag tahay iyagoo ku taliyay in guusha Trump uu haatan muujin karayo uu dib u dhigto isla markaana dagaalka uu dib u gurasho ka sameeyo. laakiin xubno siyaasiyiin oo ka tirsan jamhuuriga ayaa ku cadaadinaya Washington in ay sii wado dadaalada cadaadiska military ee saaran dowladda Iran kuwaasi oo ay ka mid yihiin senataro dhowra oo ka mid yahay Tom Cotton iyo falanqeeyaha warbaahinta Mark Levin. kooxdan ayaa aaminsan in Mareykanku uu sii wado weerarada si looga hortago in Iran ay hesho hub nuclear isla markaana si adag looga jawaabo weerar kasta oo lagu qaado ciidamada ama danaha Mareykanka ee gobolka. haddaba maxay tahay jawaabta warbixinta Reuters caawa ay sii daysay ay ka bixiyaan aqalka cad? iyadoo arrintan laga jawaabayo warbixinta ay sii daysay wakaaladda wararka ee Reuters, afhayeenka aqalka cad Caroline Leavitt ayaa beenisay wararka ku saabsan khilaafka gudaha ah ee Trump inuu jiro
waxay ku tilmaantay xogtaasi warar mala awaala oo ka yimid ilaa aan ismagacaabin oo aad isugu qarinaya iyadoo sheegtay in dadkaasi aanay joogin kulamada Trump uu la yeeshay la taliyaashiisa. Lifeed waxay tilmaantay in Trump uu dhageystay aragtiyo kala duwan ka hor inta uu qaadan go'aanna uu la fariistay dhinacyadaasi, hase haatee tallaabooyinka iyo gaarista go'aanada military ee Maraykanku ay isaga gaar u yihiin. dhinaca kale dowladda Maraykanka ayaa lagu soo waramayaa duqeyn ay ka fulisay gudaha waddanka Ciraaq in lagu dilay 27 qof halka 50 kalena lagu dilay 32 duqeyn oo isxigay oo Maraykanku ay ku sameeyeen xerooyinka ay degan yihiin ciidamada maleeshiyaadka ah ee Shiicada loo yaqaan Xashdu Shacbi. hay-adda ayaa waxay shaacisay Khamiistii in 27 qof oo ka tirsan ciidamadeeda la dilay 50 kalena la dhaawacay kadib duqeymo Maraykanku ay ka sameeyeen bilowgii bishan Maarso gudaha waddanka Ciraaq. duqeymahan oo noqonaya kuwa isi soo xigxigay oo isi soo tarayay. bayaan ay soo saartay hay-addu waxay ku sheegtay inay si adag u diidan tahay cambaareynaysan duqeymaha gardarrada ah ee lagu bartilmaameedsanayo xarumahooda rasmiga ah ee ku yaala gobollo kala duwan oo Ciraaq ah kuwaasi oo ay fuliyeen diyaaradaha Maraykanka. hay-addu waxay sheegtay in arrintan ay tahay xadgudub ka dhana madax bannaanida Ciraaq iyo ku xadgudubka khatar kasta oo lagu sameynayo hay-adaha ammaanka ah ee rasmiga ah. weerarada ayaa waxay ka dhaceen gobollada kala ah Diyala, Kirkuk, Najaf, Salaaxudiin, Al-Anbar, Wisid iyo waliba Babil. waxaana ay tilmaameen in dhammaantood ay yihiin kuwa aan la aqbali karin oo ay si weyn uga soo horjeedaan. hay-addu waxay sidoo kale sheegtay in xarumahan ay yihiin kuwa rasmi ah oo ka tirsan ciidamada amniga waddanka Ciraaq isla markaana ay si buuxda ula shaqeeyaan taliska howlgalka wadajirka ah ee dalka. bayaan ay soo saareen hay-adda ayaa intaa ku dartay in 32 duqeyn oo cirka ay sababtay dhimashadaasi isla markaana ay ugu sii daran tahay duqeymaha ka dhacaya gobolka Anbar. dowladda Maraykanka ayaan ka jawaabin eedayntan, laakiin waxay ku soo aadaysaa iyadoo Maraykanku gudaha Ciraaq uu kula kulmay weerar ku dhuftay dharbaaxa adag oo ay uga dhinteen ilaa 6 askari oo lala soo tuuray diyaaradii ay saarnaayeen. khiyaarta inala socotay tabinta qaybta 9 ayaan ku gabagabeynayaa. nabadgelyada.